waxaa maanta magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada wadanka Soomaaliya ka bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare kaas oo ay ku midaysan yihiin isla markaana ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka Soomaaliya. Imtixaanka shahaadiga ah oo maanta ay u fariisteen in ka badan 42,000 arday ayaa waxaa daahfuray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar kaas oo ay weheliyaan wasiirka waxbarashada iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar ayaa sheegay in maanta ay u suura gashay in ay si rasmi u daafuraan qaadista imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad sidoo kalena ay muuqato in dawladda Soomaaliya iyo waalidiinta ay doonayaan in carruurtoodu ay wax u bartaan. Wasiirka waxbarashada xukuumadda xilgaarsiinta Injineer Cabdullaahi Abuukar Xaaji ayaa sheegay in imtixaanka dugsiga sare uu maanta ka bilowday deegaanada kala ah Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland laguna galo 120 goobood marka laga reebo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Waxaa sidoo kale wasiirku uu sheegay in maamulka Puntland ay imtixaanku hore ay u qaadeen una fasirteen in ka badan 5,000 oo arday sidoo kalena sanadka ka dambeeya ay kordhayaan ardayda galaysa imtixaanka shahaadiga. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sanad kasta qaada imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare waxaana mararka qaarkood dhacda cabasho xooggan taas oo ka imaanaysa ardayda iyo waalidiinta walow cabashada qaarkood la xaliyo halka kuwa kalena barta looga dhaqaaqo.